waa galabnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 6da bisha Febraayo sanada 2022 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muddaxileedkiisa waxa ka haray hal maalmood oo kaliya wuxuuna 8da bisha Febraayo uu noqon doonaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Doorashada Soomaaliya ayaa waqtigeeda dhaaftay waxaana dhimatay rajadii laga qabay in shirka Dhuusamareeb 4 lagu gaaray heshiis horseedi kara in doorashada dalka ay ka dhacdo iyadoo xalay shirkaasi lagu kala tagay. Dhowr goor oo hore ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay heshiis ka gaareen doorashada waxaana xigay khilaaf cusub kadib markii qodobadii lagu heshiiyay la fulin waayay. Hase yeeshee marka xitaa heshiis lama hayo waxaana muuqatay in Soomaaliya ay doorasho ka dhici doonin waqti dhow. haddaba muxuu yahay qorshaha mucaaradka haddii la qaban waayo doorashada? madaxweynihii hore ee Soomaaliya haatan gudoomiyaha midowga musharaxiinta mudane Shariif Sheekh Axmed oo khamiistii shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay waxa dhacaya haddii sidaas ay dhacdo. Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in aysan marnaba aqbali doonin muddo kororsi hor leh isla markaana ay muhiim tahay in la ilaaliyo shuruucda iyo dastuurka dalka u yaala. madaxweynihii hore ee dawladii ku meel gaarka ah mudane Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday haddii la gaaro 8da Febraayo isla markaana ay dhici weydo doorashada ay tahay in dalku ku socdo heshiis siyaasadeed oo ay u dhan yihiin dhinacyadoo dhan. Shariifka ayaa intaasi ku sii daray in kadib loo baahan doono gogol Soomaaliyeed oo looga hadlayo qabashada doorashada iyo arrimaheeda. waa la soconayaa waxaana loo baahanayaa gogol Soomaaliyeed oo Soomaalida isugu timaado kana tashato doorashada iyo sida loo qabanayo ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed. waxa kale oo uu shaaca ka qaaday in musharaxiin ahaan ay bilaabeen kulamo wada tashi ah iyo wada hadallo ay la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada. anaga hadda waxaan bilownay wada hadaladii qaybaha bulshada odayaashii ayaa maanta la kulannay waana wadi doonaa in talada aan aruurino ayuu sii raaciyay hadalkiisa. xildhibaan Maxamed Salaad oo kamid ah xubnaha mucaaradka ee ka tirsan golaha shacbiga baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha ku aadan shirkii wada tashiga Dhuusamareeb ee xalay lagu kala tagay. Maxamed Salaad ayaa dhaliisha dusha ka saaray madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna shaaca ka qaaday in isagu uu ka socon waayay shirkaasi. xildhibaanka ayaa sidoo kale xusay in wax laga xumaaday ay tahay in lagu kala kacay shirkan isla markaana madaxweynaha uu fashiliyo gogashii ee dhigtay Galmudug. gudoomiye ka socda Jubbaland tagi maaya Garbahari wax lala soo shirtay karma ahan ee Farmaajo waxa uu raadinayo marmarsiyo uu shirka Dhuusamareeb 4 ku burburiyo waana wax laga xumaaday in Farmaajo Galmudug magaca ugu dheelo mar labaadna uu fashiliyo gogashii ee dhigtay Galmudug sidii hore u dhacday shirkii Dhuusamareeb 3 ayuu yiri xildhibaan Maxamed Salaad oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebooka. sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray in go'aanka Farmaajo ah Axmed Madoobe iyo maamulkiisa waxa diiday beesheeda halka Axmed Madoobena uu ku adkaystay gudoomiyaha degmada lagu celiyo magaalada Garbahari ee xarunta gobolka Gedo. qoraalka xildhibaan Maxamed Salaad oo dhameystiran ayaa u qornaa isagoona ciwaan ugu dhigay qoraalkiisa hawaar qabe lagu sirmay. Soomaalidu waxay ku maamaadaa hasha maqaarka diidaysa meelo daldaloolay ka dayda gudoomiye ka socda Jubbaland tagi maaya Garbahari wax lala soo shirtay karma ahan ee Farmaajo waxa uu raadinayo marmarsiyo uu shirka Dhuusamareeb 4 ku burburiyo waana wax laga xumaaday in Farmaajo Galmudug magaca ugu dheelo mar labaadna uu fashiliyo gogashii ee Galmudug dhigtay sidii hore u dhacday shirkii Dhuusamareeb 3. madaxweyne Axmed Madoobe Deni iyo Qorqoor xalay anaga aragnay waxa kaliya ay Axmed Madoobe ku dhignaa waxay ahayd gudoomiyaha degmada lagu celiyo Garbahari si guddiga ugu suurta gashay inay meesha tagaan doorashadan u qabtaan. Farmaajo waxa uu rabana waraaqdan ku qorto halka Farmaajo warkiisu ah Axmed Madoobe iyo maamulkiisa beesheeda waa ay diiday in ay maamulaan. marka waxa in la isweydiiyo mudan madaxweynaha ma afayeenka beeshiisa mise waa madaxweyne Soomaaliyeed oo loo wada siman yahay dalka iyo dadkana mas'uuliyad ay ka wada saaran tahay wala midkaani waa hawaar qabo lagu sirmay. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka wada tashiga ee magaaladaasi ee lagu kala tagay. Axmed Madoobe ayaa markii hore shaaca ka qaaday in ay sameeyeen wax kasta oo tanaasul ah balse waxa uu fashilka shirka ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo. waxaan isku daynay wax kasta oo tanaasul ah oo aan sameyn karno waxaana soo jeedinay kal haddii ay sidaan tahay bal arinta doorashada in loo kaadiyo oo dib u heshiisiin la galo oo gobolka Gedo dhan la galo ciidamadana la isku dhafa ayuu yiri. madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay in si aad la isugu qabtay arinta gobolka Gedo gaar ahaan maamulka degmada Garbahari oo kamid ah meelaha la qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. haddii Jubbaland ay magacaawayso guddiga odayaasha soo jeediyeen haddii magacaawista Jubbaland ku lug leedahay ma aqbalayo ayuu yiri madaxweynaha ayuu mar kale shirkiisa jaraa'id ku yiri Axmed Madoobe. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in uusan soo magacaabi doonin guddiga doorashada ee Jubbaland ilaa inta laga xalinayo arintaasi loona deynayo maamulka Garbahari. ma kari kara aniga guddi in aan qatar geliyo oo la leeyahay gudoomiyihii ay la shaqaynayeen haddaad magacaawda dhib ayaa ka imaanayo ayuu sii raaciyay. ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha uu isku soo koobay hal degmo isla markaana uu ka tagay mas'uuliyadii loo igmaday ee qaranka. haddaba sidee ayuu madaxweyne waqtigiisa dhamaaday Soomaaliya ku xukumi karaa haddii hal degmo uu sheegtay oo uu yiri aniga leh oo ka soo jeeda ayuu hadalkiisa ku soo gabagabay Axmed Madoobe. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu kala kacay shirkii ugu dambeeyay ee wada tashiga Dhuusamareeb kaasoo 5tii maalin ee la soo dhaafay ka socday magaaladaasi. madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay fashilkii ku yimid shirkii Dhuusamareeb 4 kadib markii madaxweyne Farmaajo Axmed Madoobe isku mari waayeen arinta gobolka Gedo.
guuleed oo hadda musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ku sheegay in ay fajac ku noqotay go'aanka uu qaatay madaxweyne Farmaajo natiijo la'aan uga soo tagay shirkii Dhuusamareeb isagoo masiirka ummadda u xanibay hal gobol sidoo hadalku u dhigay waxaa nasiib daro weyn ah in madaxweyne Farmaajo natiijo la'aan ka soo dhaqaaqay Dhuusamareeb isagoo diiday in wax tanaasula u sameeyo danta dalka ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed qoraalka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo dhameystiran ayaa u qornaa waxaa nasiib daro weyn ah in madaxweynihii qaranka natiijo la'aan uu ka soo dhaqaaqay magaalada Dhuusamareeb isagoo diiday in wax tanaasula u sameeyo danta dalka Soomaaliya waxay maanta ka hadlaa waxa mas'uuliyaddeeda qaadi doona madaxweyne Farmaajo waxa ay nagu noqotay fajac iyo amakaag in madaxweynihii qaranka uu ka fuqi waayo gobol gaar ah iyo 16 kursi isagoo weli ku haminaya inuu sii ahaado madaxweynaha Soomaaliya xilli kalena la soo doorto waxaan ku baaqaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay isugu timaado shir ay ka talina oo lagu badbaadinayo dalka iyo dawladnimada madaxweynaha waxaan leenahay maadaama aad awoodi weyday inaad dalka isku hayso tanaasulna samayso oo aad abuurtay nacayb ummadda dhexdeeda fadlan xilka ku wareeji baarlamaanka si aan loo sii kala tagin ciidamo ka soo jeeda beesha Abgaal gaar ahaan beesha uu ka dhashay madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ee hartay Abgaal Agoonyare ayaa heshiis la saxiixday madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidankan oo ahaa ciidan markii hore ay mucaaradka ka soo jeeda beesha Abgaal ay ku tiirsanaayeen ayaa gabi ahaanba qaatay go'aan ay kula heshiinayaan dawladda madaxweyne Farmaajo wadahadal labada dhinac u socday in muddo ah ayaa la soo abjiray saraakiisha wadatay ciidanka ayaa lacag ay sheegeen in ay uga maqneed labadii dawladood ee la soo dhaafay oo ay kala hogaaminayeen Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lacagtooda loo balan qaaday in loo celiyo ciidanka ayaa sidoo kale waxa loo balan qaaday in la dalacsiyo mushaar joogto ah ay qaadan doonaan asbuucii ka hor ayaa markii Cali Maxamed Geedi iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ay ciidankaasi ku booqdeen deegaanadii ay deganaayeen iyadoo ay la socdeen saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa hadda ku guuleystay inuu la wareego guud ahaan ciidankii uu madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu ku dhaaran jiray waxaana sheekha laga dhigay sacbuulay aan lahayn awood ciidan uu kula dagaalamo madaxweyne Farmaajo iyo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya saraakiisha la heshiisay Farmaajo ayaa waxa ay u sheegeen beesha harti Abgaal in ciidanka waardiyaha Sheekh Shariif la sii joogi doonaan oo aan laga soo qaadi doonin Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah shakhsi ka tanaaday dawladda madaxweyne Farmaajo lana kowsaday maalintii doorashada oo xildhibaanada ku siro codkiina ku ciwaadeysta ayaa waxa uu wadaa abaabul weyn oo uu rabo in dadka Soomaaliyeed uu ku qiyaano fikirka wahaabiga ee ah in xukuumadaha lala shaqeysto wahaabiyada ayaa waxay aaminsan yihiin in xukaamta ama madaxda aan laga hor imaan waana waxa hadda ka jira dalalka Carabta Soomaaliya waxay la daaladhacaysaa dhaxalkii iyo ilmihii uu dhalay ururka Al-Ittixaad Al-Islaami ee dhalay labada urur ee khatarta ku haya Soomaaliya ee Al-Shabaab iyo Al-Ihtisaam ururkan Al-Ihtisaam oo ah madaxweynta Al-Ittixaad Al-Islaami kuwaasoo bedeshay magacii ay gedo Bacadweyn iyo Boosaaso dadka muslimka ay kula laayeen Al-Ittixaad lana baxay magaca Al-Ihtisaam ayaa marka la rabo inay waji cusub yeeshaan oo si qarsoodi ah shabaab ula galay bay'ad qarsoon ayaa raba inay xamar shir degdeg ah ku qabtaan adigoo wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka heleysaan waa sirta